markabkii Titanic waxaa lagu sameeyey magaalada Belfast ee waqooyiga dalka Ireland, waxaana sameeyey shirkadda Harland iyo Wolff si uu uga shaqeeyo inta u dhaxaysa magaalooyinka Southampton, England iyo New York. Waxa uu howl bilaabay 10 bishii Abriil ee sanadkii 1912 isagoo ay saarnaayeen dad lagu qiyaasay 2,240 rakaab ah iyo shaqaalihii markabka. Waxa uu ahaa markabkii ugu weynaa ee wakhtiga la dhisay, hanti badanna la geliyey. Waxaa dhismihiisa ka qayb qaatay dhowr kun oo shaqaale ahaa. Kabtankii markabka oo lagu magacaabi jiray Edward John Smith, da'diisuna ahayd 62 jir, khabiirna ku ahaa arrimaha maraakiibta, ayaa markii uu markabka dhaqaaqay yidhi qoraahdii caanka ahayd xataa rabu lan yastadiicu subxaanallah, taasoo macnaheedu yahay xitaa Allah ma quusin karo markabkan weynankiisa. Sababtuu hadalkaasi gafka ah u yidhi kabtanka ayaa ahayd inuu kalsooni been ah oo naftiisa u sawiray isagoo la dhacsanaa farsamada dadkii markabka sameeyey, qalabka ku rakiban markabka iyo khubarada ka howlgalaysay. Ha yeeshee wax aan la filin ayaa dhacay 15 bishii Abriil ee sanadkii 1912. Safarkiisii ugu horreeyay markabka Titanic 3 cisho markii uu badda ku jiray ayuu hal mar quusay, iyadoona ay ku halaagsameen kumanaankii saarnaa inkastoo qaar la badbaadiyey. Haddii aan waxyar isbarbar dhig ah ku sameyno doontii Nabi Nuux calayhi salaam iyo markabkani. 1. Doontii Nabi Nuux calayhi salaam waxaa sameeyey hal qof oo keliya, halka Titanic ay dhiseen ama sameeyeen kumanaan qof. 2. Waxaa laga sameeyey doontii Nabi Nuux alwaax, halka Titanicna laga sameeyey biro kala nooc ah. Titanic waxa uu siday 2,240 ruux iyo shaqaale keliya, halka doontii Nabi Nuux calayhi salaam ay saarnaayeen noolaha dunida oo lab iyo dhedig lehba. 4. Markii ay dhaqaaqaysay doontii Nabi Nuux calayhi salaam, waxa uu Nabi Nuux tala saartay Allah subxaanahu wa tacaala, waxa uuna yidhi Nabi Nuux calayhi salaam, bismillaahi mujraha wa mursaha. Waxa uu ku bilaabay bisinka. 5. Duufaan ayaa qusisay dunidii oo dhan, waxaana ka badbaaday doontii Nabi Nuux oo keliya, halka Titanic oo keligii uu qusay, doonidiina ay badbaaday. Nuxurka qoraalka aan ugu dan leeyahay ayaa ah inaad Allah aaminto. Aqoon kasto ama farsamo kasto ee aad leedahay waxba kuma gasho. Daawadayaal, halkaas ayaan ku dhameynay qisadii ku saabsaneed isbarbardhigga doontii Nabi Nuux calayhi salaam iyo markabkii Titanic, kaas oo mar ahaa markabkii ugu weynaa ee dunida soo maray, ha yeeshee haatan taariikhda galay. Ha iloobina inaad subscribe saartaan kanaalkan, lana sii wadaagtaan saaxiibadiina si aad u heshaan muuqaalada iyo macluumaadka kale halkaan kusoo gudbin doono.